السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسكو سو نقد وناكسن يا ولاشي نصركين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. walaalahay waxaan leeyahay ku soo dhawaada maanta waxa weeyaan hawl yar oo laga hayo halka saalada ee fadhiisano maalin walba waa maalin walba meesha la fadhiisto ee TV-ga lagu daawado ama muraayada sida taqaaniin waa nadaafad maalin walba laakiin maanta waxaan sir walaalada video maalmahan idinma soo duubin la qaybso walaalaha sida aad u hagaajinaysid ee yoomiyan loo hagaajiyo maalin walba yani loo hagaajiyo waa meel la fadhiisto habeenkii maalintii subaxii galabtii xilli walba yani waa saalad baan dhahnaa laakiin qolba xisaabsanta qolla waa la yiraahdaa qolka la fadhiisto ee ciyaalku iska fadhiistaan ku ciyaaraanay يعني عائلة فديستو فاميلي فديستو ما قرتين walaalahayga hore ila joogo waxaan leeyahay aad iyo aad badan mahadsantiin commentigiina quruxda badan dhiirigelinta like taad saarteen share gareyseen ma sha Allah tabarakallah aad iyo aad badan mahadsantiin walaalahayga igu cusub ee igu soo bireen waxaan leeyahay ku soo dhawaada channelkii wani waayi gabadhiini weeyi dawa kaasa walaalayaal ku soo dhawaada nasrakiin maanta waxa idin hayso waxa istir walaalaha bariyaha wala kala raagay la yar qaybso adigoo hagaajinaya hadii la iska yahay saaxiib ciyaal miya la oran jiray waa iska hawluhu adduunku iska badan yihiin kaasoo roogi baan ka laabay waan yar nadiifinayaa de nadaafadna loo sheegay maayo hooyo waa maalin walba ha nadiifiso meele oo maba dhamaataba hawsha adduunku laakiin waxa idin sheegaya oo tusaya oo sida yani maalin walba sida wax loo nadiifinayo loo hagaajinayo yani hooyo waliba way garanaysaa yani waa dhiirigelin waa ka kaca fadhiga yalla fadhiin hooyooyinka fadhiuma yaalooya waxa la yiraahdaa nin baa la weydiiyay wuxuu yiri maxaa kuugu yaabadnaa sheekayro idin soo dhaxgeliyay maxaa kuugu yaabadnaa baa la yiri inta aad jirtay kuugu yaabadnaa wuxuu waxa igu yaabadnaa habeen baan riyooday buu yiri markaan riyooday habeenkaas waxaan ku riyooday markaan seexday buu yiri waxaan ku riyooday nin aanu saaxiib ahaan jirnay oo dhoofay oo London tagay buu yiri markaas dabriyahana dhoofku da telefooniyo waxaas mu jirin buu yiri dhoofku waa adka sida la isku helo qofkaas markuu dhoofayay bay ugu dambeysay buu yiri wuxuu yiri ninkii baan riyo ugu tagay London baan tagay halka maan diyaarad ka raacay buu yiri London baan tagay ninkii baan doonay telefooniyo waxa ma jirin buu yiri waan doonay fiisaha laysiiyay wuxuu ahaa buu yiri 17 cisho miyo ahaa buu yiri talo 17 cisho waqti maan haysan wuxuu yiri ninkii baan doonay ninkii baan waayay maalintaan soo dhoofayay buu yiri ee saacada waliba ay harsanaayeen ayaa ninkii meel kaga soo horbaxay markaas ay dhigu waa intaas oo dhan waan ku doondoonayay ma maanta adiga soo horbaxnaa dhoofayo saacada waliba ay harsana Allah kaale waan ku casuumay gurigayga wal casuumana haygan gurina haygeynine 17 cishan ku sugayayba aan ku raadinayba waan ku waayay imkana tigirkii baaba ay go'ano fiisuu ka dhacayaba la igu yiri marka waaniga imka dhaqaaqay waxba iima harsana ninkii baa wuxuu isiiyay buu yiri de lacag aad u fara badan oo imka de aanan xasuusnayn buu yiri aad u fara badan warmayntan oo dhan baad siinaysaa wallayna aanan ka qaadanin war wallayna aad qaadanaysid war wallayna aanan ka qaadanin war wallayna aad qaadanaysid ayaan isku cilcilinay buu yiri halkii baan uu qasab ku qaaday yiri lacagtii anigoo faraxsan oo airportka yimid buu yiri oo lacagtii ee soo xambaartay ayaa wuxuu yiri ayaa riba qaylis agtayda ka qaylisay buu riba ikicisay Allah markaasaan hareerahayga eega alla fresh kibad hurda maba tagin la dhanmeeda lacagtii ridaas ay iga qaaday buu lacagtii rida ayaa iga baabisay lacagtii leeysiin lahaa intaas waxay sheekay yar qisayro inoo soo bandhigay walaal kuma fiicna aanu hadalka runtii hadda la igu sheekada anoo soo qorta mooyaan oo maxay haday idin soo bandhiga sheekooyin hadda jeceshiina commentiga ugu soo qori doontiin laakiin iskuma fiicna sheekooyinka anigu waxaan isku fiicanahay runta hadii la doonayo sida wax loo hagaajiyo sida wax loo nidaamiyo ya sheekooyinka waxa iskuma fiicneen walaalayaal marka waxaan sariintaana bal asxaabtaada ugu yar sheekee
qisadaa yareen maqleen ninkaas riyooday London tagay riyada ku tagay marka walaalayaal wataa Nasrakiin iska shaqaysanaysa saaladeedii yareed iska hagaajinaysa iska masmasaxaysa waa dhiirigelin umahaadka ama hooyooyinka marka waxa weeyaan maalin walba hawl adduunka kama dhamaato waagi beriyaba halkii bad ka bilaabaysaa laakiin waxa aad u fiican waa kayga dhacay baalku waxa aad u fiican hooyadu kulliba inay alaabteeda iyo hawlaheeda nidaamsato haday caruur leedahay dharkii iskuulka u sii diyaar garayso habeenkii markay seexdaan shandadooda alaabtooda waxooda u sii diyaar garayso yacni waqtigaaga waa inaad nadimtaa nidaam waa inaad samaysataa jadwal aad sidaad wax u maareynaysid eed wax u samaysanaysid yaa marka waxaa leeyahay hooyooyinka dhiirigeli hayga ahaato intaasuna dawkaa Nasrakiine maanta videoga nadaafada iyo saalada yar la iska nadiifinayo ee lagu daawado telefishinka marka waxaan leeyahay baasha aan ku masaxayna horaan dilo soo qabsado waa khal iyo biyo iyo bahal yar oo carfiso aan ku daray tan yar la shitay guriyaha lagu shito ما شاء الله تبارك الله ويكون على الناس علابته أد بكون على الناس وكون قرح بالناس سمرايت بتكون مسحة كتايو واحد تكون مسحة كتام مساس كتكون مسحة كتام مال والبمال جديد سميترتو وأنا قام مسحات سوق عتير مسحة يا سعلات ديار على علينا يا marka hada wakaas walaalayaal iska saxa jadwalkiina iska nidaamiya wax walba hadan jadwal lagu socon adduunku ma kala soconayo waa inaad tara maanta meeshaas nadiifina maanta meeshaas ku koobanay maanta talaajada ku koobanay maanta waxaasan sameynaya waa in waqtigeenu inoo nidaamsanaada laakiin haday tiraadin maalin baan ku wada kacaya guriga oo dhan oo isku soo wada rogaya de ma noqonayso adna waa daali guriguna nadiifoobi maayo waa inaad maalinba waqtigaaga meel siisaa ad maalin bad jadwal samaysataa hooyooyin hadaynu nahay dawa kaase Nasrakiin waxay idin tiri walaalayaal ka soo warama videoga xaqiisa siiya like tabadiya like meel dheer bay nageynaysaa subscribe ka si share gareeya asxaabtiina iyo walaalihiin iyo dhammaan eheladaba u si share gareeya hadal badan haama buuxshay baa leeydi dawa ta Nasrakiin hadalka iskuma fiicnine dawa kaas walaalayaal waxay idin leedahay videoga xaqiisa la siiyay like toobadii like meel dheer gaadho walaalayaashiina soo share gareeya hablaha ay share gareeya waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin ma sha Allah tabarakallah walaalo aad iyo aad u qiimo badan baa igu xiran oo like iyo share iyo subscribe intaba isiiya oo igala bakhaylin inta kale ay daawanaysaa laakiin inta daawatay ee like saarin baa badan waxaan leeyahay walaalayaal idinkuna naga saara like ta sulkayr wallahi waxba idin ma yeelayo waxbana idin ma dhimayo anagana waxba noo taraya marka walaalayaal dawa kaas naga caawiya like ta iyo share ka iyo subscribe kaas dawa waxay leedahay Nasrakiin hadal banaan ma buuxshay waa ina aniga iyo asxaabtayda isku soo noqod wanaagsan video lamida intaynu ku kulmayno oo taada ka soo siisay waa maalin cadceed ba halka daaqada ay ka qabanaysa xaramkiina halkaas iga shiday ma sha Allah tabarakallah dawalaalo kaas ay laawina share ta like ta subscribe isku soo noqod wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh